Kulan ciyaareedka u dhexeeya kooxaha kubadda cagta ee lagu magacaabo Hijab Dreams iyo sidoo kale kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo Iskaashi ee gabdhooda ayaa kulankan waxa uu ka dhacay uu martigeliyay garoonka kubadda cagta ee Injineeriso ee dhaca degmada Cabdicasiis ee gobolka Banaadir. Labada kooxood ayaa waxa ay ku hardamayeen wejiga hore ee horyaalka kubadda cagta ee dalkeena Soomaaliya. Waxa ay abuureen fursado aad u sarreeya labada kooxood, waxaana fursadihii ugu badnaa ee ka faa'iiday kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo Hijab oo door weyn ka qaadatay. Xiddigaha ugu muhiimsan ee kooxda kubadda cagta ee Hijab ayaa durbadiiba waxa ay abuureen fursado badan oo ay kaga faa'iideysteen. Lucky oo kulanka door weyn ka qaadatay waxa ay shabaqa gaartay 7 jeer halka ay Sky gaartay 3. Suma iyo sidoo kale Amira oo min hal gool oo wada dhaliyay ayaa waxa ay wadarta noqotay 12-0 oo guusha ku raacday kooxda kubadda cagta ee Hijab. Kooxda lagu magacaabo Iskaashi ayaa dhammaan kulamadii ay ciyaartay waxa ay kala kulantay guul darro aad u xanuun badan. Waxa ay ciyaartay 10 kulan, 10 kulan waxa ay laga dhaliyay goolasha ugu badan ee kooxda. Kulanka ugu yar ayaa waxaa laga dhaliyay 4 ilaa 6, kulanka ugu badan ayaa waxaa laga dhaliyay in ka badan 11 gool oo laga dhaliyay. Kooxda Elazo oo iyadana ka mid ah kooxaha horyaalka ee ku loolamaya ayaa weli hoggaanka haysa. Kooxdan lagu magacaabo Hijab ayaa guul gaartay taa oo hadda ay weli looga horeeyo dhibcaha oo kooxda Elazo ay ku hogaaminayso horyaalka wejiga hore ee dalkeena Soomaaliya. Kooxda lagu magacaabo Hijab waxa ay ciyaartay dhammaan 9 kulan, hal barbaro ayay gashay, halna waa laga badiyay. 7 ka mid ah kulamada ay ciyaartay waa ay guuleysatay oo guul weyn ayay ka gaartay. Waxaa la filayaa sanadkan in ay sameeyaan fursado aad u qurux badan oo la is dhihi karo wejiga labaad marka uu bilowdo ayay dib u soo laaban kartaa. Macalin Xamaam oo kulankiisii ugu horeeyay ee uu leeliyay kooxda Hijab Dreams ayaa isna guul ku furtay xilli ciyaareedkan, walow kulankii ugu horeeyay ee guul darro kala kulmeen kooxda lagu magacaabo Nasiib oo ay iswajaheen toddobaadkani. Maxaa laga filan karaa kooxda Hijab Dreams xilli ciyaareedkani? Kooxdan ayaa ka mid ah kooxaha ugu waaweyn ee ugu xirfadda sareeya ee kubadda cagta ee gabdhaha. Waxaa ay jooga xiddigo xirfadoodu ay sareyso, waxaana la filayaa sanadkan in isbeddel weyn ay ku sameeyaan kooxda si ay guul ugu soo gaaraan koobka horyaalka kubadda cagta ee gabdhaha. Sidoo kale waxaa kooxdan lagu magacaabo Iskaashi iyadana ay sanadkan door weyn ka qaadato, walow aysan wax guul ah ka gaarin tartanka dhammaan kulamada ay ciyaartay. Waxaana inta badan daneeyayaasha isboortiga dalka ay rajo wanaagsan ka qabaan in dib u soo kabato kooxda kubadda cagta Iskaashi, walow xiddigaha jooga ay yihiin kuwo xirfadoodu ay aad u sareyso, waxayna soo bandhigaan kulan walba ciyaar aad loo jecleysto.